madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta sanadlaha ah ee hogaaminta suuban ee Concordia. Madaxweyne Farmaajo ayaa abaalmarintan ku helay kaalintii uu ka qaatay nabadeynta isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika. Khudbad dhinacyo madataabanaysay ayuu ka jeediyay shirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna u dhigneed sidan: waxaa sharaf ii ah inaan idinla joogo shirweynaha sanadlaha ee Concordia. Waxaa sidoo kale sharaf ii ah inaan guddoomo abaalmarinta hogaamineed ee Concordia sanadka 2019. Waxaa si gaar ah hoggaanka Concordia uga mahadcelinayaa inay aqoonsadeen dadaalka joogtada ah ee madaxda Geeska Afrika ugu jiraan sidii gobolka nabad loogu soo dabaali lahaa. Khilaafka iyo dagaalka waxay siyaabo kala duwan u siyaadiyeen saboolnimada ka jirta gobolka, sida inay dhaawac weyn u geysteen kaabayaasha dhaqaale, hay'adaha iyo wax soo saarka, burburinta hantida, qoqobka iyo kala daadashada mujtamaca iyo shabakadaha bulsho, barakaca qasab ah iyo shaqo la'aan iyo sicir barar joogto ah. Waxaa intaas dheer kheyraadka oo yar oo ay weheliso koror dadweyne oo xawli ah. Saboolnimada iyo horumar la'aanta ayaa sidoo kale qodobo qayb ka qaata xasilooni la'aanta gobolka. Nabaddu waxay lagama maarmaan u tahay in la helo kobac waara. Waxaa sidoo kale ay ka turjumaysaa heshiis ama wada noolaansho bulsho, deganaan iyo barwaaqo. Waxaa sharaf ii ah inaan idinla wadaago in Geeska Afrika hadda ay ka jirto saansaan rajo iyo nabadeed kadib sanado badan oo nabadgelyo la'aan ah. Si kastaba, in nabadda la joogto waxay u baahan tahay kalsooni dhis iyo isu tanaasul, wadajir, faham iyo inay taasi ay ka go'an tahay dhammaan dhinacyada qaybta ka ah khilaafka, ayaa ka mid ahayd khudbaddii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir duceedyo la yeeshay madax kala duwan oo ku sugan shirkaasi, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Estonia Marwo Kersti Kaljulaid iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ireland Leo Varadkar, iyaga oo ka wada hadlay yagleelidda iskaashi ku dhisan dan wadaag iyo wax wada qabsi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina. Maanta waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga la socdo waxa ay shirar horudhaca la yeesheen madax badan kana qayb galeen kulamo horudhac u ah shirweynaha kulanka qaramada midoobay ee beri bilaabmaya. Maanta madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay kulan looga hadlayo xorriyadda diinta iyo aaminaadda diinta oo guddoominayay madaxweynaha Mareykanka oo madaxweynayaal badan ay kasoo qayb galeen iyo marti kaleeto. Madaxweynuhu sidoo kaleeto wuxuu tegay kulan looga hadlayay climate change ama isbeddelka cimilada oo loo arko inay khatar weyn ay tahay mustaqbalka haddaan wax laga qaban. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ireland iyo kulamo kaleeto oo gaargaar ah. Wafdigiisa maadaama kulamadu badnaayeen qaar ka mid ah iyaguna waxay lahaayeen kulamo gaar ah. Mathalan anigu waxaan kulamo la yeeshay wasiirka horumarinta Sweden Peter Eriksson. Waxaan kaloo la kulmay gabadha wasiirka arrimaha dibadda waa dalka Norway. Waxaan sidoo kale ka qayb galay kulan-weynaha looga hadlayay caafimaadka adduunka iyo kulamo kaleeto oo tiro badan oo ay ka mid yihiin kulan wasiirada dalalka carabtu ay lahaayeen. Marka kulamadaas iyo kuwo kaloo badan oo wafdiga qaybihiisa kala duwan ay ka qayb galayeen maadaama kulamo badan oo isdhinac socda ay ahaayeen ayaa maanta dhacay. Qaar madaxweynuhu ka qayb galayay, qaar wasiiradu ka qayb galayeen, qaarna safiirada ay ka qayb galayeen. Maxamed Qays Xasan Maxamed, Home Cable TV, magaalada Muqdisho. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab
haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida